Malik ibn Dinar ayaa wuxuu arkay gabar jaariyadaho ninkii Ciraaq xukumayay uu leeyahay gabar yar jaariyada qurux badan oo ninkii Ciraaq xukumayay iska leeyahay gabadhi baa waxa la soo saaray faras geeyay inta la soo saaray baa nin lagu soo diray magaalada soo wareejay Malik ibn Dinar baa arkay Malik ibn Dinar baa u tagay wuxuu ku yiri ninkii waday niyow gabadhan ma la iibinayaa buu in ay ibsadaan rabaay wadaad miskiin waa waxa ma muhaddis waxa haysan waa gabadhi baa ooyday oohin ku dhifatay wani kana damcay miskiinka anigoo gabar oo ma garanaysa boqor leeyahay ninka miskiinka damcay ka xaybay tir guriga geebay boqorkii ku dacwaysay marka Malik ibn Dinar in la yiraahdo wala yaqaan in caano waa sheekha waa Malik ibn Dinar baa maanta damcay haloo yeeray booliis baa loo diray waadka la soo kaxay wadaadkii markii la keeno gurigii soo galay ninkii waa ka haybad baa ka muuqatay wixii barsheekh waran alxamdulillah khayr way maanta bal gabadhan miyaa saragtan ha waxa ku tiri niyo waxaan idhi sayidkeed haduu iibinayo waa inay iibsadaan rabaan wixii niyo hadaan iibin lahaa ma iibsan kartaa tan mid ka fiican iibsan karaa tan maxay tahay tan mid ka fiican iibsan karaa tan waa wuxuu yiri ceebo badan ay leedahay mid hal ceeb lahayn iibsan karaa ceebteedu maxay tahay wixii hadaan cadayar oo soo huuray leedahay soo uraysaa hadaan shallaysan wuxuu yiri injir baa galeys madaxaada waxay u baahan tahay ma garanaysaa kaadi iyo wax la mid ah barafuun hadaan ismir waa soo uri laakiin wuxuu mid intaas oo dhan midna u baahanay ayaa qiimo ka jaban ku iibsan karaa tan aad rabto maad ku iibsan kartaa laba ragcadood habeenkii la istaagan ku iibsan karaa laba ragcadood oo habeenkii loo istaago ayaa waxaan ku iibsan karaa mid aan wax nuqsaan lahayn ولكن ما قبل يا جماعة قبل يا مقلب يروح الشيء جاي حكومتها قبل واحد والله قد نصح والله إنك أنو نصحي ليش لما نطرف يكبر يجي ربع هايني وطوبت كيران مرة إلهي بوصل نقول سبحانه وتعالى